barasaabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax iyo maayirka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Yuusuf ayaa maanta waxay kormeer ku soo mareen isbitaalka guud ee magaalada Caynaba. isbitaalka muddooyinkii u dambeeyay ay jiifeen dad aad u tiro badan kuwaas oo soo ritay xanuunka shuban biyoodka ayaa waxa halkaasi barasaabka iyo maayirka warbixino kala duwan ku siinayay suduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar iyo howlwadanada kale ka howlgala isbitaalkaasi. waxaana barasaabka gobolka Saraar iyo maayirka magaalada Caynaba uu helinayay suduwaha wasaaradda caafimaadku ay mid u galeen isla markaasina u dul istaageen bukaan jiifka oo xanuunka shuban biyoodku soo ritay iyagu ku jira isbitaalkaasi. ugu dambeyntii suduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar ayaa isagu barasaabka iyo maayirka uga warbixiyay xaaladda guud ee ku sugan isbitaalku iyo waliba tirada dadkii u dambeeyay ee la soo dhigo isbitaalkaasi oo soo ritay xanuunka shubanku. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan doonayaa maanta inaan warbixin yar oo kooban ka bixiyo xaaladda caafimaadka ee gobolka Saraar iyo isbitaalka degmada Caynaba. sidii uu ogsoonahay waxaan ku jirnaa xaalad aad u adag, xaalad abaar baahsani ay ina haleeshay oo duunyadii ay maratay majority-geedii xaalad roob la'aaneed waxay kaliiftay ama waxay sababtay in uu dilaaco shuban oo uu ka dilaaco gobolka meelaha qaar ma wada aha laakiin meelihiisa qaar shubankaasi markii uu dilaacay wasaaradda caafimaadka heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaran way ka howlgashay. sidoo kale waxaa si wanaagsan oo aad iyo aad noola shaqeeyay barasaabka gobolka Cali Maxamed Faarax maayirka iyo xildhibaanada inta kaleba hawsha waa laga shaqeeyay si wanaagsan baa looga howlgalay. shaqaalaha caafimaadka waanu dirnay meel kasta oo xaaladaasi ka dhacday waan u dirnay tiiman baan u dirnay si ay uga howlgalaan uguna shaqeeyaan dadka. dhulka laga soo qeylinayay waxa kamid ahaa dhulka loo yaqaan Carra Balanbal, Muraayada, Qorilugud, meesha kale la yiraahdo Qandahaar, eegaag, dhammaan waxaan u dirnay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ayaan u dirnay iyagaana ka howlgaliyay sablayga iyo dawooyinka iyo wixii aan u baahanahay oo dhanna waxa nagala howlgaliyay oo na siinayay wasaaradda caafimaadka waanay ku mahadsan yihiin. annagoo cusbitaal ahaan Caynaba haddii aan ka hadlo degmada Caynaba waxa naloo keenay oo noo yimi 58 qof baa soo gaaray cusbitaalka oo xanuunsanaya ayaa naloo keenay intii xaaladdan ay dhacday. 58 qof hal qof oo ilmo yara baa naga dhintay oo laga soo qaaday meesha loo yaqaan Carra Balanbal. ilmaha yar isagoo serious intaanan IV line-ka u furin ayuu naga dhintay ilmahaasi. intii kale ee noo timi way wada ladan yihiin. barasaabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax iyo maayirka magaalada Caynaba iyo xildhibaan Maxamed Xaaji Abin Xaaji Xasan ayagu howlwadanada caafimaad ee ka howlgalaya isbitaalkaasi ku amaanay dadaalka ballaaran ee ugu jiraan badbaadinta shacabkooda iyo sida ugu shaqeynayaan dadka bukaan jiifka ah isbitaalkaasi ku jira. runtii halkan heegan baanu ku jiraa siduu sheegay maamulaha caafimaadku heer degmo iyo heer gobolba waxaanu heegan ugu jiraa waa dadkan bukaa halkan yaala marka waxba kala hadhi mayno waxna ka ayran mayno. uga mahad celinaya bahda caafimaadka dhalinyarada firfircoon ee halkan loo joogta aan horeba u sheegi jirnay inay wax kasto awoodooda habeenay maalin u soo jeedaan sida uu sheegay dhulkani waa dhul qorfaa shuban biyood baa ka dilaacay uu ladan yahay laakiin waa dhul qorfaa oo kala fog. waxaan u baahanahay gaadhiga ambalaaska ambalaasyada shidaaladooda iyo inamada masaariiftoodii inamada wata masaariif ma leh oo mushaar ma leh iyakuna shidaal ma leh dadkii bukayna waxba ma haystaan. dhibta ugu badan ee meesha taalla horta waa taa qofkii wuxuu jaanjaanmayaa oo meeshiiba ku dhimanaya oo darxumo u dhimanaya inta shidaal la isla dhex marayo. waxaanu wasaaradda iyo xukuumaddaba ka codsanaynaa in hawshaana la ka qaabilo oo shidaal loo sameeyo laba ambalaasyada oo darawaliinta masaariif loo sameeyo. dadkii aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin annaguna indhahayagaan ku aragnay shaqaalihii u shaqeynaya oo iyo maamulkii oo heegan u ah aad baan ugu mahad celinayaa 100% yahay. wali abaartii wayna haysaa roob daay oo aan maka sheegnaa ma jirto meeluu ka daay laakiin wali abaartii sidii bay u taagan tahay. taasi markaan ka gudbo xanuunka markaan u soo noqdo xanuunku gurmad buu u baahan yahay gurmad aan muxuu ahaa ayuu u baahan yahay. waxaan wasaaradda caafimaadka ka codsanaynaa cid kasta oo jaaliyada oo na dhageysanaysa gurmad bay u baahan yihiin dadkiinii waxay u baahan yihiin in loo gurmado oo dhinacyo badan looga gurmado. gurmadkaasaanu codsanaynaa in muxuu ahaa la soo gurmado oo la soo gaaro. waxa kale oo baaq u dirayaa gaadiidka baabuurta biyaha ee qaadaysa biyaha ayaa baaq u diraya. shidaan roob ka daay waxa weeyaan meel walba waqtigiiba yaala inay soo daraan oo dadkooda waraabiyaan
ciidanka booliiskana waanu ku ballamin tallaabo laga qaadi doonaa waxa kale oo gobolka u sheegaya inay qaadaan tallaabo caafimaad qaadaan qof kasta inuu isnadiifiyo qof kasta inuu ka shaqeeyo iskoobka iyo meesha uu ku nool yahay barasabka gobolka Saraar ayaa ugu dambeyntii waxa uu isbitaalkaasi gaarsiiyay deeq biyo sifaysan kuwaas oo lagu talagalay in la siiyo dadka u jiifa xanuunka shuban biyoodka ee ku jira isbitaalkaasi jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba